Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa Duuli Media. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Gobolka Shabeellaha Hoose wuxuu ku yaalaa koonfurta dalka Soomaaliya, waxaana magaalo madax u ah magaalada Marka. Dhaqaalihiisa gobolkani wuxuu ku tiirsan yahay beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga. Gobolkan waxa uu xuduud la leeyahay gobollada kale ah Banaadir, Shabeellaha Dhexe, Baay, Jubbada Dhexe iyo Badweynta Hindiya. Waxaa mara webiga Shabeelle. Shabeellaha Hoose wuxuu gobol ahaa sanadka markuu ahaa 1884. Run ahaantii gobolkan wuxuu ka mid yahay gobollada ugu quruxda badan dalka Soomaaliya, sababtoo ah wuxuu leeyahay deegaano aad u ballaaran oo doog ah. Sidoo kale waxaa ku yaalo beeraha waaweyn ee loo yaqaano aseedooyinka, kuwaas oo inta badan dacalka ku haya webiga Shabeelle oo dhexmara gobolka. Deegaanada ayaa ah kuwa aad u soo jiita dalxiisayaasha. Deegaanada dalxiiska kuwacan waxaa ka mid ah beeraha Afgooye, taas oo isku xirta caasimadda dalka iyo xarunta gobolka ee Marka. Sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa kalluumeysiga. Gobolka Shabeellaha Hoose wuxuu leeyahay dhul aad u qurux badan iyo xeebo indhahaaga soo jiidanayo. Wax soo saarka Shabeellaha Hoose. Gobolka Shabeellaha Hoose waa gobolka ugu horeeya dalka Soomaaliya ee dhanka wax soo saarka beeraha. Gobolkani wuxuu Rabbi ku manaystay kheyraad fara badan oo iskugu jira bad iyo bariba. Waxaa ku yaalo beeraha ugu waaweyn ee dalka, kuwaas oo laga soo saaro dalagga kala duwan ee laga isticmaalo inta badan waddankeena. Gobolka wuxuu caan ku yahay beeraha khudaarta. Khudaarta ayaa ah miro u baahan biyo joogto ah oo lagu waraabiyo. Sidaas darteed ayaa Allah wuxuu gobolkan ugu deeqay webi biyihiisu qulqulaan bilaha sanadka oo dhan. Taasna waxay sahashay in la abuuro beerahaas waqti. Khudaarta iyo noocyada kale ee fawaakihda gobolkan ka soo baxda waxaa laga xusi karaa yaanyada, basasha, barbarooniga, kabsar caleenta, basbaaska, bocorka iyo kuwo badan oo soo koobi kara. Waxyaabaha kale ee la midka ah sidoo kale waxaa ka mid ah fawaakihda ama khudaarta aan la karin ee gobolku caan ku yahay, sida cambaha, mooska, isbaandheeska iyo canabka, mirooyin aad u fara badan. Sidoo kale waxaa xusid mudan in gobolkan dhaqaale xoogan ka soo galo dhoofinta mooska. Waa gobolka kaliya ee laga soo saaro intiisa badan mooska laga isticmaalo gudaha iyo dibaddaba. Sidoo kale wax soo saarka gobolkan waxaa ka mid ah kheyraadka badda oo ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha gobolkan uu leeyahay. Lahjadaha lagu hadlo gobolkan waxaa ka mid ah lahjada Maxaatiriga, Maymayga, Afbaraawe iyo lahjado kale aan la soo koobi karin. Ugu dambeyntii, degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ka mid ah degmada Afgooye, Walaweyn, Leego, Baraawe, Qoryooley, Kuntuwaarey, Sablaale iyo